السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير تيدا قالك الصدى وهذا رير يوتيوب يا رير سناب شات يا رير فيسبوك وان سلام يا وحمد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت الدرع شيء يا قرق يا مايكا بيك الشيطان تهاي مايكا بان مريي ودمي مايكا بكم حالة ده قدع على مرصدي مايكا كان ومايكا تشالنج او ان سميي inaan Soomaaliyeed igu soo xujeysatay Aamina Beauty igu soo xujeysatay Aamina Beauty na waan u xaalayda waa ka soo baxaan u maleena xujadeeda laakiin hadda ma ahan khayra waa in salaamaya dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. wareeda waxba ka sii hi habayar farduus hi Maya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير دمانتين سيتهين عافمات كورما محا إنو كلا دنبايي نيرا الشيكا قفك الشيكا وباحن هذا واسبتي وحالي وأحد تمارو ومعلين شقودتك الشقينا آيو دادك كالي عن شقينا نضي ما بشقينا أنا وكارنتي مع القوتشرا قريها لاسك دحفرديا كورونا فيروسا قريه دادكي دحديقاي هاي هافرير دي سكين هافرك قالوا والسلام يا هلو حفصة بيرفول oh my god حفصة كوكين حب ولا شيء ذا قالك أن آدك أجع لهاي ولقي أن كدين تري هادنا أن كسو برتاي ماشي لدهايو نيروبي كينيا ولا شيء لايف وصو أركي إن بدن بانكو قدريمين تريه بينكي واكو قدريمين تريه لكن واكو صو برتاي قفي عنا واتحي سو دوا ولا شغالي أخياري وحان سميه ميك اب تشالنج waa la igu soo xujeystay waxa igu soo xujeysatay walaashayda qaaliga ee la dhahayo qamar dhageyso waxa waa igu soo xujeysatay Aamina Beauty maadaama ay igu soo xujeysatay waa makeup gadac loo marsanaayo calashan waxa sameynaysaa baaquli ama jabacad hadba saa u taqaano ayaad makeup ayaad warqadad ku guraysaa waxa ku qoraysaa eyeshadow hadda wali warqadii halkan ay yaalin because haddan dhameeyay for example kale under eyes ku jirto waa challenge waxa ku jirto powderka dabeedna inta warqadaha yarsa u duubto aad halka ku ridaysaa halka marka ku rido jabacada ama baaquliga ruuxay xabada kala soo baxay waxa ku soo baxay oo kale for example under eyes ku soo baxay ama bootarkii ku soo baxay aniga maanta qosalkii iga dhamaaday waan sameeyay youtube-ka igan ku sameeyay wali maan soo galin haddan soo galinaya insha Allah bidnila editing-ki iyo wixii baa ii harsan dad badan runtii waan ku xujeystay أنا وان شعلا إنها بلا بدن حجيست أو صوماليات أو ميكوب كمرشة لكن ما أقاني رنتيها بلا بدن هي ما أقاني هي سمالة أنت بدن هي ما أقاني هي يقرأ لهذا سو لبا بلا بدن كسر حجيستي وحاويان ده يوتيوب كاقات كاركس أنا دولا هيك أدقو حجداس الله أكبر ولا ليالو فيسبوك يقو حباك السيا I don't know. هاي نشاط وعليكم السلام حفصة عرب وعليكم السلام وفي عنها قالي مركا أخيرا قف كستو قرابة إنو حجداس داوضو قصل كبادان لي هذا for example أوكالي الله تريع نشيط كواب النحي هذا for example أوكالي وحان سميي وحان روحي إن باقوليجي أما شبعاد دي بان روحي شبعاد موتقان خلي محاو تقاني باشن شبعاد موتقاني نتمسا باقولي ودي حاو تقاني إنها إيسا الشيغة أنا وحان وقانا شبعاد لكن الحمرك باغولي يغانم باغولي سو باغولي كاسا روحي واكلا صباح حبدي مركا وحان سميي يا باغولي بانا دها سو ما خياني بليس إيسو صح داني صحين باغولي كمركاس واحد سمينيسا إن واكلا صباح بحيسا أنيك حدا for example كلا وحا إيسو بحذي وحا إيسو بحي markii ugu horeysay setting powder ka ii soo baxay setting powder ma awoodahay setting out powder ii soo baxday setting powder kana waxay iigu soo baxday maxaa la yiraahdaa
markii ugu horeysay. So I was like okay sitting powder xagaan powder ba kuma bilaabin xagaan foundation ma marsan sitting powder ka xagaan ka marsana khayr I don't know guys please raala hada jabcad ayaan u aqaana ha jabcad madibad okay thank you Safia bint Muhammad thank you walaala يا برع لقيمة جبعد كورة البادية كيمين محي دان غيري أنا I don't know وحي هذا لكن وحن سوق ليا وحدا بخياري يوتيوب كي كان سوق ليا هذا أنا إتابته يوتيوب كي ما جي صار كيسا وانا نعيمة برينك وتجلسا سبسكرايب بتساريسا مركز سبسكرايب صارته وحكو سوق ليا وحكستا أيكو سوق ليا مدك على وحن كلو سوق لنا يا فيديو أني أوديجا runtii waa video aad u qiimo badan waxaan ogaaday maadaama aad guryaha joogtiin oo aynu guryaha joogno aynaan socsocone meel aadaynin in aynu nafteena ka helno baaqulina waa la dhahaa iyo jabcad ya aragde Naeema waa very international waay very international aanahay waxaad ogaataan khayaaday Allahu akbar maanta makeup marsanaaye de waxaan u marsanaaye si gadacgadaco wajiga baan marsada in yar baan saa dhab isugu siiyahay akhyare waxa jiro markii oo ma aragtay guriga ku jirtiin odaygaaga isbaranaysaan noloshiina isbaranaysiin big surprise aan idin haya wallahi billahi big surprise oo qosolka idinka dhameynaysa laakiin laakiin it makes me happy akhyare odayga anigoo la fadhiyo xalayto ciyaalka markan ciyaalku seexdeen anagoo iska fadhina bu intu saa ii eegay waan sirto wuxuu ka eegaa duuf ma ku yaalahe wallahi billahi was like filina iska daawanana kursiga fogu ku fadhiyay moogtaa markaasuu intu saa ii eegay ayaan ku maxaa iga eegay anay was like duuf ma isaarne alayaalo waa ka baxaya Facebookan waa ka baxaya because ma shaqeynayo I don't know waxba ka siisaga dhanba marka saa intuu eegay ayaan sir waa la soo socdaa xuka eegahay duuf ma ku yaalahay ya ilaan waa ogtiin odayaashina dirac shiidkaas kala dhex fadhidino you don't care moogta markaas yiri Naeema waxbaan rabaa inaan ku sheego يا تلفزيون كيف هو دمي دمي تلفزيون دمي فيلنك هاي يقص تلو مصودا تلو مو حلي واكل تجي دونا تلو مو حلي هي واكل نعب هاي تلو ماسك هذا طوبن شهر بيك الصعونة وي يا خيركم انت قلنا والله وجد خير بروح ساقرة فيسبوك ما بقى له دقالمو يا حاسم يا ولا ليالو ما بقى وجدي وحبينا اللي كود على مقصان سر هوغا ياي عوضة لغو تورة طول محمود لها مركز سيري بيبي وحانا بنا حكو شيء وانا was like what شيك سوا معي أنا كبابا بصوب بوذي بمسكة حد زاس بقى فرق إلى ذا مركز سيري مركز نقول دمي تلفزيون كدمي وما الصعود حتى دمي تلفزيون كدمي مركز دمي ويري نابل تيجي ما تتابع عبادي صوت عبادي شيك ربطاي كدمي تلفزيون and he was like ding ودمي مركز waxaan ku orday boqolkii maxaa dhigi jireen boqolkii indood bas odayga u saara odayga man boqolkii indood bas u saara maxaa waxaan ku haye ii sheeg maxaa ka wadaa waxaan ku sheegaa maxaa ka wadaa balanbalkayga markaas walaalayaal YouTube kan soo galina ma fahanteen abbaaya gabar fiican tahay carabka barta bixi carabka galehe akhari please ma commenting ما وجديه اوف I don't know why لكن واسك شيغا horta way dhageysanaysan khayr Soomaa khayr hadda ay dhageysanaysan wad sulka soo tuura ama wadna soo tuura please because waxaan jeclaa qofka anigu commenting markan arkaa inaan wax soo qoro laakiin commenting halkan ka daawanayo suga Facebook-ga kalaaban ka soo galayaabe ma idinku kala jaraay hadda ujeeda YouTube-ka iga soo galina horta waka okay waa dhageysanaysin good waxaan sameeyay odayga baan sidaas baan waxaan ku odayga waa naxay waxaan sirna talo wuxuu ku sheegaa you know why because waan iska casheynay waan iska fadhinay waan iska sheekeynay ana waxa u sheekeynayna waxa ahayd
because caruurtii waa naga seexatay waa seexinay and I was like hayay waxbaa laysa wada tal maxaa leeyahay tal ma lagu furi rabaa talo maalo mid kale dadka cadaanka qiyaaray waa daacad haday rabaan inay ka tagaan ama aad isfurtiin ama ay ku sanifaan sida Soomaalida wallahi inaanay meelaha ku soo warwareegin runta ku sheegayaan moogtaa runta ay kugu cadeynayaan maya hala iga tago laakiin maya abay dhigayso fatu alla waa ku tuuga abay anigu aan wax ka tago aniga yaan la iga tagin ogayo bay adduunka waxa ugu xumahay adduunka waxa ugu necbahay in iga taga aniga ka tago walaalay macaane ma ogi aniga waxa halkan iga saaran anigu ninka aan ka tago ya alashan anigu ninka aan ka tago oo aan dhaho hadhowto anaa ka tagay inaad ifahmaysin English ku daya isfahamkiina igu daya alashan adduunka nin baa ka buuxo hadduu ninkaasi maanta iga tago I don't care okay hadduu maanta iga tago I don't care because nimana adduunka ka buuxo haddaad qofka isfahmi weydaan oo aad qofka isfahmi weydaan way fiicantahay kala tagtiin Soomaa walaa ma ahan inaad daas ku gurtiin so taas waa okay hadduu qofku ka tago laakiin anigu Naeema ahaan runtayda idin sheega hadduu iga tago mid rabaan hela adduunka ilaahay waa ballaaraya laakiin aniga ma rabin in iga tago waxaan rabaa inaan anigu ka tago hello si fiican dhageysta anigu waxaan rabaa inaan ka tago aniga dhulkaaba la igu jiiday dhimasho waay haddii la dhaho ninku igu dhawaa ka tagay iga dhaaf waa ku tuga walaalay runtan sheega aniga ben ma aqaan aniga ben ma aqaan hadhownin oo waa bahdilaad adduunka waay waan ogahay labada qofun baa taga labada qof markay kala tagayaan midun baa taga madhamino oo de midun baa yiraahdo moogtay marka hore soo afjara relationship kama ogdo kula mid baan ahay beetriga dhaasna Naeema ha laga tago waa jab وين إناد أديكو كتكنا والله هدا إفهمتي عباده عدون عدي لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكلا إيجو سمي لكن يو إنسان إيجا تجد أنا وأنا كتكوا ولا عليه ما كان كسو أباي سنكن وين بلاش مو إيسارية سنكن وين halkan ka soo baxay abay bilaash mu isaaraya may wuxuu isaaraya hay indhahan waaweyna u jeed bilaash ma la iisiin ya waa inaan wax ku uriyaa markay soo socdaan waxyaabaha maarta la iga tagaayo waa inaan uriyaa dabeedna waa inaan ka sii digtoonaada indhahan waaweyn waa inaan wax ku arkaa waa ku sidee dabeedna ciyaalkii waan shalay soo hagaajino ciyaalkii waa seexday way cadeedeeno good night baa lagu yiri gurigeyga waa guri hoos iyo guri sare oo hoos u soo degay hoos marka u soo degay ee aanu isaguna kursi halkaas shisho uu ku fadhiyo alla waxa soo gashay ayaan haldhaa la walaashayaan jeclaayo reer Burca the one and only makeup artist makeupist walaashay ayaan haldhaa waxaan ku hayaa taageero weyn walaalo thank you so much akhiyaare intaanan heest waxayga u guda galin sheekadayda waxaan idinka sheekeynayaa inanta la yiraahdo ayaan haldhaa waxaan tagnay waxay ku haysataa koofeer weyn bay ku haysataa maasha Allah tabaarakallah burcay ku haysataa burco iyada iyo teamkeedii iyada makeup-ka marinaysay ilaahay baa idinku dhaariya waa gabadh makeup iyada marinaysa iyada gacanteeda ku maraysa naaga far badan baa jira oo intay mulukiyeer maxaa dhigi jiray brukiyeer furtaan iyagu iska fadhiisto hablaha yaryar dirsada oo makeup-ka aan garanayn inantaasi iyada makeup-ka marisa iyada gacanteeda ku marisa hello dadka makeup artist ay kamid tahay burushkaysa ula taagantahay suuniyana say u dhisto wallahi oo billahi oo tallaay suuniyaha saa uga helay inantaasi say suuniya u dhista amazing waay aniga marka iigu dambaysa ee hadii ilaahay ka dhigo aan burco tago koofeerkeedan taga marka waxa yar baa idin sheegaya oo aan weliga ilaabi waay akhyaare inantaasi waan u tagnay waxa la oranayaa dadka Soomaaliya waa gaajo ma ogtahay gaajo ma ahan dhageysta warka idin soo wado walaalayaalow wallahi oo billahi waa reer Burco u hiil ismalihi waa gabar walaashaya oo haday doonto ilaahow may Muqdisho ka timaado ilaahow ama may markacday ka timaado laakiin gabadhaas aan isku baranaa idin sheega horta tufax bay saaxiibahayeen oo is yaqaanino that's why ban horta saas markii hore isku baranaa laakiin
maalintii aan meesha isla tagnay mulkiyeerkeeda tagnay ta dhacdan idin sheegaa gabdhihii oo dhan bay 1 hour kaliya hal saac bay gabdhii isugu yeedhay markaasay tiri naayara dhageysta Naeema Brink waa timi waa inaad productigeeda ka iibsataan gabdhii oo dhan bay isu wacday say gabdhaha Soomaaliyeed gob yihiin baan ku sheegaa dhageysta aqaare gabdhii oo dhan bay wacday gabdhii oo dhan bay soo hagay 1 hour hada waliba wayna soo doontay ogow burco intay ka soo baxday berbera nagaga hortimi berberay nagaga hortimi wallaahi oo bilaahi talayna been idin sheegayna gobta Soomaalida gabdhooda gobta idin sheegaa waliba siiba gabadhaas ayaan hal dhac gobnimadeeda idin sheegaa iyadoo laba baabuur wadata hal baabuur may wadan wallaahi labay wadatay qoraxda marka aad banaanka istaagto waxay ahayd wiidho khayr wiidho ma fahantiin wiidho markaad qofka marka eegto wax baabuurka xataa wuxuu kula noqonaa mulac yaro meel maraayo khayr ma fahmaysin wiidho waxaan ka wado ما فهمتين هرتا ويدا وحان كودا قرحت waxay ahayd kuleel berbera inaga hortimi berbera wallahi iyadoo laba baabuur cad wadato wali waan xasuustaa ogow qof waliba intuu ku galo ayaa loo joogsadaa markaasay waxay sameysay wayno iyadiya gabdha kale garbaheed ay ku duusho gabdha badan bay gabadhan haysataa garbaheed ay ku duushaa oyada kaligeed qorina kaligeed ma baxo gabdha la shaqeeyo soo maaha laakiin walaaltinimadeeda iyo asal ahaanteeda ayaan gabadha ka quusan waay wallahi billahi way naga hortimi markay naga hortimi ay aanu malikuyeerkii nimaadnay meeshii nimi brokiyerkii ayay tiri ii soo noqda in yar anagu ma baanan ogeyn waxay sameynayso moogta iyadiyo tiimkeeda adduunkii oo dhan bay isu keentay intaasoo gabdhood bay isu keentay wallahi billahi waxaan xasuustaa waxay iga gateen product ciida ka badan bay iga gateen oo anigu aan iibinayay markaasaan waxaan xasuustaa $200 bay iga gateen $200 markaasaan I think inay $300 ahayd iyo inay $200 ahayd ma xasuusti laakiin ma 180 baan u maleynay inay ahayd lacagta la iga gatay I think inay 180 ahayd dhageysta maadaama ay 180 ahayd gabdhiba waxay ku tiri naayaareen naa 200 uga dhiga dee u dhameeyay maxaa waa maxay waxaad 180 kees la weydiinaysaan I was like anigaaba Afrika jooge anigaaba banaanka ka imolodnay waa naag soo degtay halashan waan yaabay aan gabadh waliba markaas waxay dhaadeen ha 200 uga dhig 80 kana ku darso inaad darso ma rabnay naga tag naga daa I was like okay aniga waliba wixii ku daraysiin aniga waliba ma wixii ku daraysiin gabadhaas alashan qofka lama iloobo wuxuu ku sameeyo laakiin lamana iloobo sida uu kugu sameeyo akhyaaray ana wax la iigu daray aniga wax la isiiyada waaba la iigu sii darayba markaas la yiraahdo 200 u dhameeyay huno yay ka bixin iyadoo halkan 200 u dhan yihiin maane what gaajo qurba wallahi oo billahi oo tullay beridin sheegay gaajada qurbahay taala oo ilaahay igu ogyahay gaajada qurbaday taala qurbahay saa gaajada u taalaayo shilinkii yar waynu eegayna alla $100 $30 iyagu ma eegaan كل أنا قلت حاج مقدشة مقادن وأصوص عضها دولا وضل كده قصنا كمركي وحلا فرفرو دولا لك لا فرفرو جرو وان كبلعبة جرو وحنلاقيها علشان بدلان بنكسر بلعبة حاجة سند نكسر جلايا مقدشو دولا وضل كده يشبوت إيو ولي دل بعيد من ولي دل بعيد من نمبرته لكن أنا قو إذن مليه علشان قبل ناس وحبي السيسي لكن وحي سيدي وحي السيسي من نيدا إذا مرنا بكبحي ويدي والله دين مارك مركت ما دولار محمد سور دوين واي بسنكا يقول هلا ولا علشان أنا وحن صبرتي قبلها for example كل الصومالي لان تشوجو برعو حن تشوجي one night بنشوجي قبل ناس آمنة أيان هالدالين هذا إنتين الصوت دونتي oo ay berbera naga hortimi qoraxdo weedha laba baabuur iyagoo wata intay naga hortimi ayayna keentay bay waxay tiri igu soo laabta idinku in yar igu soo laabta bay tiri waan ku soo laabanay gabdhii oo dhan bay isu keentay one day bay saa ku samaysay inay soo doonto inay gabdhii keento iyo waliba inay habeenkii casho geyso habeenkii waxayna geysay hotel caalamiya nasteexo Soomaaliya ayaan haldaa Soomaaliya nasteexa restaurant bayna geysay يا وحاوقاتان يا سمان لأن تشعلي نستحي عنده وتلبي حتى ريستورانتي وسميستي نستحي عنده الله ده أو شيء هي يضع نسناب وقضوه
ما فهمتين hotelkaas ayna geysay waa soo cashaynay wallaahi oo bilaa oo talaa shilin maana bixwayna la yaabtaytana xad ka lisin waa maxay waxaad bixinaysiin iyo waxaad isla hoos ordaysiin waa maxay I was like hada wallaahi wuxuu ayaanay waa ka waa nasteeco restaurant meel yaro qabow oo macaan oo aad yaabayso waa raaxo gabadhaas la yiraahdo ayaan haldhaa walaalayaal ilaaha baan ku dhaartay nolosha halkaas wadnahayga waxay kala baxday I don't know I'm in love with her haddaan nin ahaan lahaa waa guursan lahaa haddaan nin ahaan lahaa cirkii dhulkaba aan ka soo dhacay waa guursan lahaa laakiin naagaan ahayd dee naag waliba la qabaan ahayd wallaahi bilaahi waxay isku darsatay qurux iyo gobnimo iyo dadnimo iyo deeqsinimo ayay isku darsatay waa gabadh amazing hal ogaado please hal ogaado gabadhay makeup-yadeeda waxay samaysaa makeup-ka markaad soo gasho meesha soo gasho warqad baa lagu siinayaa warqadaas waxaa ku yaala $10 baa makeup-ka lagugu marinayaa $5 baa lagugu marinayaa $1 baa xataa makeup-ka ay ku maraysaa I was like walaalay $1 maxaad makeup ugu marinee aan markaasay tiri walaalo waxaan rabaa gabadh kasta oo saaloonkayga soo gasha iyadoo qurux badan inay ka baxdo $1 aniga meel iima buuxinaysa laakiin waxaa meel ii buuxinaysa gabadhaas Soomaaliyeed ee iyadoo qurux badan iga tagtay and I was like yeah wagar iyo ka waasacan please ayaan haldhaaba la dhahaa walaalkay ma ku darsadaa alla ku darso walaalkaa uun ku darso guur wax ka qaadisan oo Naeema hadaba abaal u hayso absolutely abaal baan u hayaa walaalo guur wax ka qaadisan baan u hayaa abaal baan u hayaa iyadoo kaliyana uma haya teamkeedan u hayaa iyada iyo teamkeeda wallahi billahi so thank you walaal baan idin leeyahay ka soo marsada $1 xataa lagu marsada makeup-keeda brokuyeerkeeda markaad soo gasho warqada u yaalo $2 $4 $1 $10 $5 makeup glam ah waa gabadha fanaaniinta oo dhan u maraysa markay yimaadaan burco ee ay fiidiyowyada duubayaan buurta sheekh kuwa ku duubaya maaragtay intay burco ka soo marsadaan ay iyadu u soo mariso makeup-ka iyadu intay makeup-ka u soo marisay buurta sheekh yimaadaan markaas ay halkaas sawirada iskaga qaadaan ka waran ilaabadin ku dhaariyay ila way soo dhawiyeen sheekh iyo burco waxba isma jiraan markaas intay makeup-ka u soo mariso oo soo hagaajiso oo u soo qurxiso oo tima u soo dhisto iyagoo kala shidan ay halka yimaadaan والله بالله gabadhaas abaalkeeda ma gudaayo gabadhaas abaalkeeda nin gala la arag nin guda salama arag laakiin ballan waaye insha Allah markii waxaan la furfuro inaan imaado burco oo aan joogo 1 week oo waliba aan iyada la joogo oo brokuyeerkeeda makeup-ka mar walba la igu mariyo I can't wait wallahi gabadhaas waa gob gabadha kale ku sii xigto ee aan aadka ugu mahad celiyo mar walba waa samsam sharaf ku taageeray khayray hadaan ay nala joogina lama joogtee samsam sharaf waa fanaanad laakiin meel cajiib ay nooga soo baxday iyadana mar kale aan topic ay leedahay ka hadli doona waa qof aad u wanaagsan runtii dabeecad kaftan قروح إيمان إلهي سبحانه وتعالى وسيه قبل يدنا سمسم شرف بالله هذا يدنا وفنانة هنا رجيسي شوكتا لكن برعنا ويتمعتا ما شاء الله بالله واي نقص مركن إمادو إن لبدا قف إنان أحادو إنان أحادنادو أو علو الحادنادو أو أنكسو تلقلو أخياري دادكو واهانتيا برو بيكي بوحويري دادكو واهانتيا برو ورد هيستا وابا إنان نوشي هذا waxbaan rabay maanta inaan idin sheego wax muhiim ah idin sheegay xalaani odayga naga kala dhaxdhaco qosala laakiin aaba naxdin igu beeray war ma heesiinay suga dadku waa hantiya baro bika aad dhahay anigu ma dhihin
والله وارنتي سيان هليلو وعليكم السلام ولا السوداء وغالي دادكوا هانتي برو ولا دادكوا هانتي برو يا hantiya baroe dadku waa hantiya baroe dadku waa hantiya baroe hiidsanaysiyo waxaadlahaynay وحديك سنسيو وحني هاي شيخ يجوا ربع اوكي وكا ده نجدايه ولا ليال هو ديك لو أنا مقصودنا أنت سقف بان صبرني أنت سقف بان السود وياي بريجان سومالي لان أدني ده قف مركو قف سومالي دي هينا مال والبوال قصة وياي قبل سومالي ده هو الجب مال كستاكي ما دانه لكن ولا الكائن ذو حقوقه وإن ذو حقوقه ومهم ومهم إن ترى thank you ورسومالي ده وحكوا هذا إن يدهن sorry وانك حماي إيه إن يدهن واد ما هتسنت هاي يرسبكتي صدق ذا وحباني جوا سومالي ده كير وحيستي صدق ذا وحكسيه قرال هذا يقرال هذا أنا بسنة كذا بعد ولا ودل كده ماشى الله يراهضو دين مارك واكبحويا والله بورنك أدونك وأكتين مرة البوا دوفي تشري أو مرة بملبن آدي تشري but I can't do هذا because مرة البوا حرنتاي so قريها سأل الله صفر يا depression أدونك مرك أخياري هذا الكيفان دي شيء جاي sometimes وحاكو قبسنايو وحقصل oo aadan odayga ka filayn anigu waan idin sheegay odayga is very maskiin waay waa maskiin odayga maskiin ilaahay waay wuxuu sameeyaa wonu ii sheega runtii aduu wax ku xun yahay ama aan wax ku sameeyo xun wax kasta uu ii sheega wuxuu yiraahdaa Naeema waxaas iga dhaafee
so maadaama aan isku ognahay oo mar walba khiyaari waxbaa ka siiya telefoonkayga bal suga walaalayaal maadaama aan wax walba isku ognahay oo wax walba uu ii sheego aan isku calool xaadhanahay xalayto isagu markaan caruurtii seexinay caruurtii waxaan ku iri sarta la geeyay ilaa wadada waaweyn caruurteeda 12 jirka weer ma sha Allah tabaaraka Allah hore u shaqeystay aniga caruur kalena ma dhalay aniga waan dhahay aniga caruur kale it's enough why you don't have to ilaahay ma kugu cadaabay caruur maxaa u dhali weysa toban laakiin ilaahay wuxuu kugu cadaabi karaa oo kugu cadaabaya wallahi dad ka soo bixi weydo tarbiyadooda ma fahanteen so enough aniga caruur ma sha Allah intaan haysto ilaahay ii daay waa igu filan tahay so maadaama sakariya oo 12 sano jira uu yar yahay sarta markay tageen iska seexdeen odaygan baa wuxuu yiri isagoo telefoonka iska daawanay wuxuu yiri hey baby waxbaan rabaa inaan kuu sheego hayay waaba la igu soo booday madaxa la iga soo booday ogayo bay talo miyu tagi naami iga tagi rabaa aan isxanaaji hadduu u dhaho aniga waa tagaya iyo waa guuraya iyo waa xumaysa iyo aan isxanaaji aan raahdo anaaba kaaga horeeyay waa anigu bari horaan ka fikiray waxaan ku qoslaya maaragtay waxaan ku qoslaya laakiin saa u sii dhisanaya maskaxda already waxba ii sawirmay ana waa sawirtay waxaygii ma fahmino idinka I don't know satiin laakiin aniga waa idin soo sheegay waxaan jeclahay علشان هدان قف كتجايو إن أنا قف كتجو لكن أنا إنه نيجي تجو على عشرة ما كصوب بحب نقنص I can't do that ولا I can't do that بهدلات أدونك واحد يا لا بهدلات أدونك واحد أدونك كله أباي وكاتجا باي استغفر الله يقطع أنا كمان فرتك وقاعدة دابتنا مسكح لي دي مرة الله مركو سائري قبل كاجي ما هيسا هرجيسة معنا كسوبران حبيبتي اسك إلهي اسك thank you so much ولاله thank you يا ولاله وحان سميه دابتنا odaygi baan ku dami television ka dami film baan daawanayna hororoho saalayso cunaayo oo balaayo ah dami baan ku dami television ka dami uu damiye markaas maxaa dhacay dami huuna maxay ku leedahay ya maxaa soo wadaa waa si diyaar garoobay already waa si diyaar garoobay baan ku ori oodahan si dhistay baan ku ori ya xaslay markuu dhaho ala Sultan Muhammad Ali wuxuu yiri we are staying same hotel for your trip in Hargeysa really walaalo which hotel Sultan Muhammad Ali wilkan let me see wilkan aan fiiriyo kuma fiirin kara hay walaalo iga dhaaf hay walaalo ma ku jeediye isa sheegde ma sha Allah tabarakallah daabadeedna waxaan ku waan sii camirto waxaan sir odaygaas haduu dhaho waa kala tageena oo waa ka taga adna ka roor baan sirka baa faraaq u qaado marka hore waxaad tiraahdaa huuna anaaba kaaga horeeyay sheekada waa si diyaar garoobay mindadan si afaysta markaas odaygu yiri you know how many years baynu wada joognaa markaasaan ku yiri hogayo bye waa kan uu soo wadaa hogayo bye mar alla markuu yiri imsa saneen wada joognay ayaana waa ii caddahay talo ma kaga horeysa afka ma goosata ma tiraada wariya anigu waa iga soo dhamaatay inaan kala joognay iska daa markaasuu yiri waa u diyaar garoobay moogta waa cabaystay ajay bas diyaari garayska guntaan dhiisha iskaga dhigay wallaahi billaahi guntaan dhiisha iskaga dhigay and he was like ha 6 years aan wada joognaa 6 years ha 6 sano wada joognaa sama and I was like ha hey 6 sano wada joognaa maxaa jira 6 sano wada joognaa waayo odaygi basankan goosan gaar and he was like stitchy baby stitchy maxaa dhacay stitchy baby ma bay dhihin haduu baby dhila waxaan madlan wax kala soo waday stitchy maxaa isla wareerinaysa ana ayaamaan hore baan ku fahminaa markaad gaadeenaysa marba dhinac u socota jiireysay ilaa tanaad soo waday oo baa iga dhaqso لابدنا challenge يا هلا يا مسكاديا كم رسمت سام با رسمت كم تلو يا دي صندوق كم تلسيو أرسكرية كم بيت so maxaan sameeyay ana isgiijinta walaalo isgiijinta aniga been ma idin sheegaya khayaaray 14 sano ayaynu wada soconaa social media ku wada soconaay hadii aad wax igu qabsanaysiin in aan ahay qof aan daacad ahayn علشان daacadda waan ku dhintaa
okay so that's why ban waxaan idin la share gareenayaa maanta ma idin dhahay haduu ninku iga tago waa waalanooyaa now is adkeynooyaa haduu xataa maanta nin odayga furo oo aan isfurno xataa waa adkeynaya aniga anaa ka tagaan leeyahay laakiin dadka kuma dhahay anaa ka tagay sheekada waa la kala saaraa qofka inaan anigu ku dhaho anaa ka tagay waxba aniga ii tarimayso hello dhageyso sheekada aan isla fahano aniga hadda odayga haduu igu dhaho waa ka tagay علشان أو عن ضدك عن كل هذا أنا كتجي تصح ما يترسو لكن السجن ربع إن أنا يبهدلين أنا يبهدلين بان ربع أنا I don't care قبل ده صاحي بدي هدي أوقات إنه يبهدلي I don't care لكن السجن أفكيس وحرب إن أنا كجوري أنا كتجي بورصة هذا قاضو لكن هدوب هو بورصة هذا قاضو oh my god بهدلات أدون كواي waxaan ka oray hadal waxba aan ku daaline dabadna waa keelisiga siyaarisan wada joogna Soomaha ha sankan ka soo galay ilaahay oo kursigu iga joogo kursiga hadhoweeyda tus doona waa kursi meel shay ah waxa noo kala dhaxeeyo meel laba qof marto waa soo haaday baan ku markii hore gadacaan isaga jiifa telefishinkayga iska dhuuqaay moogtahay waxaan ku oray filimkan horrorkan daawanana iska dhuuqaay moogt gadac waa fadhiistaan ku goora isgadiye waa garan waay wirrig أنا أفتضل كفر يوم بالسرقة وهذا أنا وحنقول أضيق سنك كقلي ولا النعيمة الله النعجة خير واحد ما أغينا إلى قبتني إنك السن كان ساق حرور سلام كوري الله هاد بدني وسو هذا وسو هذا and he was like نبل استتشي وحبك هاسيه نايستتشي أنكوري هاي واستتشي مركزان واستتشي إيشك واحد إيشك اسمه قصيري وحويان لحدي سنو noloshayda ugu farxad badnaa bay hay oh my god guys oh la waxaan ku iri ilma isukayso istaagtahay nin dhan oo kugu yiri bal hadda akhaar hadaba waxba kama aan sheekaysanin wallahi oo billahi mid kama aan sheekaysanin I was only talking about محل ده تلفزيون كم مسك دوقة ساسا مسك تشيفة بقى لكن إسقوا أول حكي فكرة and he wanna share with me علشان إنه إلا share قري يربي معنا and he was like لحدي سنة a relationship عن سوقاته أما قبل عن إسقبنا ولحدي سنة أقول فرحة بدناي وأوي أنكور وأوي I was like أرد نقطك إنكارنا وحكلام مودني نصوّد أرد نقطك ده waxaan ku iri odaygayga waligay noloshayda exkiisa naagtii ay soo kala tageen oo qabi jiray waligay odaygayga ma weydiino ma dhihin 6 sano ugu horeeyay ma farxad bad ku soo noolayd mise goormay dhibaatadu bilaabantay waxa ma weydiiyo I have never ever asked wallahi inaan beenidin sheegayna I have never ever asked because aniga waxaan hubaa qofka aad nolosha la qaybsanayso inaadan ka hadlin exkaagi iyo kildhibu isiye iyo concealer bu iibiye iyo adduunyo odaygaygii hore alaabadu iibiyo dhan waa quba wax yar baa ka yaala hadda boorsooyin iyo waxbaa ka yaala laakiin inta badan ma xidho I don't like it because waa pastigi qofka ku soo xasuusanay maano I don't want to talk about it I don't want to علشان waxaas oo dhan albaabadaas oo dhan waa soo xirxirahay waa soo dugum man ka soo siiyay so halkii bay bilaabatay ilaa meel buu ifreebay markaasaan sii weydiiyaan ku haye oo heede imsa sanad isqabteen xaaskaaga ya maxay tir walaashay yaasmiin waxay tir naciima malaha xun ma maxay tiri maalaha ma fiicno wax ka baro waliga adoo hadalkaaga ku dhamayn hadigdegin absolutely ha de aniguna markii baan halkii baan interview u fadhiistay odaygii wara idin sheegay interview baan u fadhiistay interviewga waxaan ku dhageyso waryahay imsa sanad isqabteen xataa ninkayga waligay ma weydiin naagtiisa hore inta sanad isqabeen can you see guys noloshayda waligay ma weydiin and he was like 14 years Allah 14 meelood ka jabaanadi hooyo baa iyada bayga dheerayd 14
14 meelood ka jabxaan u weydiistay balba ana 6 years baan ka hadlay iyadana 14 sano isqabeen I was like yeah 14 sano ma isqabteen naagtaada iga dhaafe waxaan u weydiin waa xasaa kamid ah xasaab kamid ah haye afar jabtadan baas haye de waxaan ku markii baan interview la gal markii baa waxaan dhahay haye degdeg ma fiicno wallahi waa runtaada walaal ma fiicno markaas waxaan ku dhageysanayo 6 sano marka 6 sano isqabteen ma ku faraxsanayd xaaskaagan ku dhimoogta ma ku faraxsanayd naagtaada 6 sano marka isqabteen markaas uu yiri adduunka de waa idin sheega qara wallahi ana midin ka qarinin markaas uu yiri maya problemku markii ugu horeysay uu bilowday because warqado iyo balaayo iyo waxba bilowday aan isku dagdagaalnay haye 6 bilood 6 sano markii laga soo gudbayna ma farxadad ku noolayd musaxad ku noolayd balaayo baas yaa markuu jaamacadii wax dhigan jiray maaragtay engineering iyo waxa dhiganay I was like haye abayo ay talo muxuu oran doonaa and he was like ha because igana weligaa hays oranin adigan caruur lahayn caruur marka dhasho problemku ka yaraanaya wallahi saas buu igu yiri moogtaa ha waruntaada hadiya wataasa markaas wuxuu yiri waxaan go'aansanay buu yiri problemka 12 sano markaan isqabnay 12 sano sheekadan waa sheeko cusub odayga 6 sano wada joognay 6 sano weligeey ma weydiin naagtiisii hore noloshayda ma weydiin because waa go'aankayga aniga waxa isna ima weydiin ana ma weydiin laakiin xalay waa la subiye shubtay isaga furfuray Soomaa sheekada anigana waa ka faa'iideystay hay baby wallahi billahi waa wax wanaagsan hay oh my god that was crazy that was absolutely crazy xalay qosarka adduunka de markaas yiri ha markaas waxyaabo badan aan la sheegay sir badan aan la sheegay ha ani xitaa Naeema ma basugo ha walaalay sugitaankaas inoogu daran inaga ma sugayno nin iyo wax mar alla markuu ninku afar kala qaaday leena tolo muxuu soo wada hogayo bay sakariye sug adeeg haydin salaame xalay sheekada ka sheekeeyay sakariye Brian sakariye Can we come here waskan waxaan rabaa inuu idin salaamo khayre arrinkii ugu sheekeynaya waan la moogta Naeema isdejina استطاع كدريم والله أنا سمعي قف كان قانون هنا سكمي baby why are you sweating are you working all day yes come and say salam alaikum to my people no baby come no. you look amazing والله I look really sweating yeah sweating دب ملا واشقيني سكالي كالي baby ذاتك سلام no سلام والله هاي سلام say salam alaikum salam alaikum I'm out with the kids today yeah you are out with the kids son عرورتو ما we're playing Poison Earth what are you playing Poison Earth هاي okay دولك واسون واي والبودبودة so you have been whole day and you have been وسو أديك so what have I done always I was talking about here huh? I am also sweating baby because I was working do you remember Ayan Halda from where Ayan Halda from Baraha she have a salon yes yeah Ayan she's there oh Ayan she was amazing person yeah how are you hope everything fine in Somaliland yeah it's good now I hope so and no coronavirus no coronavirus right yeah baby you know what I was telling I say yesterday you were so surprised me you know what you surprised me really yeah when we was watching the horror movie yes we were in the salon and was just sitting and then you say what did he say Somaliland flag yes Somaliland flag I didn't give him who give you it was Katra from UK صحيح خطرة from UK as you say and since you know it's no when is it 2 years ago yeah but look at me yes it's also beautiful I have all my flag yes yeah I have Somalia Somaliland Puntland Jubaland whatever I have all the flag I have five flags
So you know what I was talking about yesterday when you were like, baby, we have been 6 years together. Oh my God. Oh my God, what? But it was amazing that, like you say, it was the happy thing we had. I was surprised. But I was also surprised that I was like, oh my God, what is he telling me now? Maybe he was like, maybe he's leaving me, because it was like, baby, I have to tell you something. And I was like, what are you telling me? You're scared. I was scared. Yeah. No. Yeah, I was scared because you say, I was like, what? What did I say? You have to do the television. Pardon? What did I say? Television. What the film? We were watching a film. Yeah. How we move. And what did I say then? Stop it! Stop it! Move in, yeah. Yeah, and I was New house. yes, and I was like, stop! We are not talking about the film now. Now we have to talk about this. But it was amazing. Yeah, it was so funny, and I was like, oh my God, what to do? So, live in Copenhagen for 19 years. 19 years, yeah. The longest. Longest and happiest. Hello? Yes. Yeah, you can tell them. So tell. This was the longest and happiest place I've lived. It was with me. Yes. Oh my God, baby, thank you so much. Oh my God. Guys, I'm crying, yeah? That's very nice, huh? Longest and happiest. Oh my God. Guys, that baby, that's nice. Oh, thank you so much. I was telling them actually before also. Oh, why I'm so special? I'm crying a little bit, huh? Special woman. Why I'm so special, so? Maybe the ladies there, they can learn something from us. So what? Okay, I'm not saying your exes, but I'm saying what I am different to the other women you have been with. What is the difference? Huh? It's easy to say, but it's cliche. Something about communication, respect, and honestly over each other. And don't be afraid to talk to each other if you have something. Oh no, I think my husband don't like when I say that. Oh no, I'm afraid to say that. If you live together and be honestly open-minded, yeah, really important. And don't be afraid. If you really have to be afraid to say something to your husband or your wife, then why do you have to be afraid? Yeah, that's not a relationship. If you are afraid, the person you are living with, if you are holding back something, then you are not like, then that's not a relationship. Why are you holding back? Like what? Why? Like if you want to go out, when you are out, when you are at work, I send you messages. I send you maybe some beautiful messages, or not, like, I don't know, naughty messages, I don't know. And then you smile maybe when you get my message and say, oh, yeah, that's okay. Guten Abend, Deutschland. It doesn't mean that I am like a bad person if I send you a message, or if I tell you what I like, or if I tell you something. Yes, I am tired. I've been out with the kids all day. Yeah, mashallah, baby, mashallah. But that's good time. We have a good time. Yeah, because tomorrow you are working and I'm not. I have to work tomorrow. I'm not working, so that's okay if you work today. Yeah. So guys. Sig hej fra Kolding. Kolding, har vi besøgt jer i Kolding? Hey, fra så du Kali. Guys, if you have any question, you can ask now, and then we are finished. But just we want to share with you guys. I was so surprised yesterday when you say that, when you say the longest and happiest the 6 years I had with you. That was, but how become that you suddenly want to tell me, baby? That was a movie. Someone, family was moving in a new house. Yeah. And then I don't know, just thinking about, oh yeah, I have moving really a lot here in Copenhagen, many places. Yeah. But I'm the luckiest one. Yes, yeah. What is it? What did Amina say? What's your secret for you to your commitment? Secret? I don't think there's any secret, but
again, we are open-minded. Give some space to each other. Yeah, that's very true. Yeah. I can do something for myself. Naeema do something for herself. Yeah. Do something together. Yes. That's wonderful. That's very important, guys. Guys, we will do a video, kissing video, baby. We are doing kissing video. Which video? We are gonna do a kissing video. Learn how to kiss? Yeah. I don't think so. We show that. Why? We can show it. Not here now, but in YouTube. Yes. Guys. Yes, I am. Well, You can see a video on the YouTube. yeah, tell them the video in YouTube what it's talking about. Yeah. We'll make a video how we met. Yeah, we will make a video how we met. I think we'll do, not now, 3 or 4 days when we, Thursday, Friday, we have time to that. Yeah. Yes. When we we will do that, guys. We will talk about, and a lot of people was asking when we met, how we met. So guys, waxaan idin sameynayna video how we met, inshallah. But if you want to know if my husband is Muslim or not, you can go to our YouTube, Naeema Brink, and then you will see he was actually talk about it. Ifra Timir calling. No, tag walalo. Thank you so much. So keep respecting each other. I hope you're fine all over the world. Stay strong. Take care of the coronavirus. You have to be patient. Yeah, So hope you all will get through it. inshallah. Oh, some places are harder to be in other, Yeah. but I hope you're fine. Yeah, now. we make also that in video we are talking about the Yes. corona. Yeah. It's also on YouTube, guys. Guys, if you don't subscribe our YouTube, then you will not see notification kasoo baxayo. You cannot see what we upload in there. So we will upload a new video when we met. Yeah, baby, someone say that I talk too much, yes. and you never talk. So now it's your time to talk. He said, "Bye, tak Amal. Congratulations, thank you. Thank you, Walalo. Dumasi, yes. Dumashi, yeah, you know what Dumashi is. Yeah. Yeah, you can talk a little bit Somali to them. No. Now I'm going down to relax. I need to relax now. You need to relax, Yes, yeah. sit down and do nothing. Do nothing. Oh my God. Okay, wait. What are you doing? Not doing nothing, baby. Waa idin sheega khayarayde commitment baa la sameeya xalato ma ogido waaba talay sheega la yidhi longest and happiest relationship. I'm so happy. Oh, I was like, how could you do that? Naeema Dumashi maxaad adna uga kadis uga dhigi weyday. What? Someone say something. Naeema Dumashi maxaad adna ugu kadis uga dhigi. Ha! We know that. I always send him a message. Actually, I send him to message. I send him to messages. I call him and I surprise him. Actually, I actually do some surprises because when he get home, when he's work, he have to be excited when he's on the way, and have to smile. And his work is very hectic. How to say in Danish? I don't know. In Somali, hectic. Like it's very busy. Why? So he always waxaan sameeyaa message yaro kaga farxiya u diraa. Aanu filaynin laakiin khayare waxaasoo dhan YouTube baa idinkula share gareeyay. Waxaasoo dhan waa idinla share gareeyay. Haddaa rabteen ninkiinu inuu jilbaha idin soo dhigto. Every secret I share with you in my YouTube. So he knows in Somali. He knows Somali. Baby, you can say something. Ask them how. Hi. Sidee Dhacay. It's another way over. She said, you know Sidee Dhacay, the other. The other one. Say it to him. Say it to him. Iska waran. Sidee Dhacay, you know. Yeah, Sidee Dhacay and iska waran. Yeah. But you say in another way. You say, how are you? You say many different ways. Yeah, you can say, yeah. Like, Sidee Dhacay, like... We can, what do you say? No, Fiican.
fiican. Fiican. Yeah. You know, when you are from Waqooyi, it's like Somaliland and Somalia. It's very different the language, Yeah, I know. the dialect. Yeah. But we all same because in there where I'm from, they say ma fiican tahay or iska waran. But it's I always That's the one. yeah. Most people are saying that. So Yeah. many people. Somali people. Okay. Most of them. Yeah. Sidee tahay? Yeah. Sidee tahay walaalo ma No, fiican tahay? not all say that. No, okay. But some of them, they say that. Yeah. But that's absolutely amazing, guys. I told you the secret between us. We don't have any secret. And you know what? My husband, sometimes he say to me, you don't have to tell your friends. You don't have any secret with me. But I can't. I tell my friends when we have a girl out, like markan banaanka u baxayna aniga gabdha, I always tell my friends I don't have secret with my husband, and they get angry. They was like, why you tell your husband something? And he's my best friend. He's my husband, and he's my best friend, and he's everything for me, guys, except the children, of course. So how can I have secret and isaga la qaybsan waaye. I don't want ina saaxiibada la qaybsado. And it's not only nin cadana, not only because he's white, but also every man. In Somalia kula hadlayso, will Somalia, it's the same. Will Somalia, if you have like, if it's black or white, whatever, best friend ka dhigo. Saaxiibada intaad u sheegi lahayd secretkaaga, odaygaaga u sheeg secretkaaga, because he will tell you. But saaxiibada hadad beris caydin, she will, you know, she will abuse that, you know. So it's much better to, is that true? But you don't want to. Do you think I have secret for you? Do you think? How many percent do you think I have a secret? I don't think it's called secret, But something- maybe you're not telling everything because you don't think about it. That should be a secret in some way. Yeah? So I don't say that it's a secret. It's just, I forgot to mention that or something like that. Yeah. It's not a secret in that way. Yeah. But, yeah. So I have something, maybe I forgot something. Yeah. Both. All people are doing that. But They think, sorry, I haven't tell you that. Okay, then to say it. Yeah. That's the way. but I don't have a secret purpose. No. Not because he's white. No. Where is he from? I'm from Denmark. You know what we say in Somali? Qola ma tahay. You know, it's like qola ma tahay. It's qabil. It's like where you from? The clan. No. Which clan are you? Qabilkaaga ii sheeg. Which clan are you? Yeah, I cannot remember. Oh my God! I think it's something about Abdi, but I'm not sure the clan name. You have not said too many times to me. No. But which clan are you? Which clan are you self? So if you don't remember mine, which clan are you from? So you don't have a clan? Qabil Malid? No. No? Oh my God! We have in Somali, if you say we have no qabil, that's very, oh my God, that's not gonna happen. I cannot remember your clan. You don't remember me? No. Allah, wa iloobe, qabilkayga wa iloobe. Something about Abdi. It's a nickname, last name. Something is about Abdi ma ka xasuusta fiiri. Okay, I will tell you, then you have to write. But let me tell you, do you have claim for you? No. I mean, your family? No. No? Why? You have their last name. But- That way you can see where you're from. That way you can see where you're from. Yeah. But you don't have claim. No. No? No. Oh my God. You have the family. Only the family. Mm. Like you have a Brink. Your family's name Brink. Yeah. So you have, even that Brink is dead for many years ago. But you have his family. Mm. Right? You have his name. Kaya dhegeysta, the Brink Yeah. is like your qabil. It's like what we call claim. Right? Right? Yes. Oh my God. Absolutely. That's crazy. We have in, maybe that's why in our country there's a war,
It's a lot of things because we have this qabil. Maybe that's why. Maybe that's why we have. I don't know. Because clan, they fight always together. Yeah, you should not do that. They should not do that. We know, but it happens. Yeah, I know. Maybe not so much in Somaliland, but more in Somalia maybe. But that's not the clan. I think it's more the Al-Shabaab. We don't have to talk about that. Yeah. That's true. Actually, yeah. That's the problem. Yeah, that's not actually qabil. Yeah, that's another thing. I think all the Somalian people, wherever they are, they want to live in peace with each other. Yeah. And they live out all over the world, and they met. Then they're happy to see some from their own culture. Absolutely. So that's normal. Absolutely. But normally in Somali people, they are very friendly and very nice people. Hello, Sam. Yeah. Banan. What can I see? Banan. Bahnan. Nan. It's like badan. Our lipstick, it's badan. Yeah, badan and bahnan. But do you know which lipstick I'm wearing now, baby? Do you know which lipstick I'm wearing? Let me look. It looks like badan. No, not badan. I cannot see. Is it Gabile? No, not Gabile. Long lasting or kiss proof? It's kiss proof. Kiss proof. Yeah. It's not Busasu, it's more purple. It's there. Yeah, no. It's your number 3. Which one? Getaway. Yay! Guys, getaway lipstick will get away. And if I kiss you now, you cannot transfer. Yeah. You wanna kiss? No. Why you are not kissing? It's personal. It's a personal. It's عيب. Okay, I can kiss your hand and show it. Look, no, it's kiss proof, guys. So if I kiss him, it's not goes away. So it's getaway lipstick, yeah? So that's not lipstick. Yes. Yeah, if I even kiss you, it's now not. The seller is coming up. Yeah. Here's my lipstick. Buy my lipstick. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah. But baby, I know you are tired. You have to go down. But which lipstick do you really love? Which lipstick is romantic for you? Guys, which lipstick do you think is romantic? Our lipstick. Let me see. There are many beautiful lipsticks. Yeah, so, but it's depending on... But which lipstick do you think is... Which lipstick... When I put it on it, and you're like, oh, you want to kiss me or you something. Yeah, which lipstick do you like? I think... I know which one you like, but I want to hear from you. Garawa kana khare kana hada imerson. Garawa this one. Garawa. I think Mogadishu. Like that. Mogadishu. Yes. Woo! Okay, baby. Dark red. Oh my God, baby! You know what? Somalians, they love that one because they say bear. We call it bear. Liver, like a liver. We call it bear. Oh my God, baby. Wait. I'm gonna put it. Please, stay. Akhara Mogadishu kahalaya. Oh my God, baby. Let's put on it. I'm gonna put it. But it's depending on the color of the skin of the Somalian women. Okay. Because some of them will have a little more dark skin, then the Kismayo is really beautiful. Okay. But you know, I am the darkest one. I don't know, sometimes we going out, we see some young women dark, they have put on them Kismayo. It's really beautiful. Yeah, that's true. That's absolutely true. But many of the lipsticks are beautiful. Yeah. That's why you have to look at all the different colors. Yeah. And go test it. And test it and see which one. Coming out, test it to see what
suit you. Yeah, absolutely. Guys, let's put on Mogadishu because my husband he said I didn't know that, baby. I thought you love a Baraha or Beledweyne. Oh yeah, I like them also. But the one you think it's like But Do you- Baraha and Beledweyne, we in the evening. وهبينك كلها. He knows Go to also bed. when you go to bed. Oh my God, the kids, guys, you don't hear it. Go somewhere else. What do you mean? You don't have to hear what we are talking about. Hallo, I live eller et andet? Yeah, ikke næste. Ja, så hvorfor må alle andre så høre jer? Fik I hvad vi skulle have? Hvad? Hvad har I købt? Ja, og det er Hvor meget bulgur har I købt? 1 eller 2 poser? 2, og det er 1000 gram. Oh my God. Og Brian, jeg har ligget en på Guys, look at this. Mogadishu. Hvad er det? Der er hul i en af dem. Hul i en af dem? It looks pretty. På siden, så når du tager den op, så pas på, at det ikke falder ud. Ja, det er det, der skal lave det. Det er Jonas. Så kan det ikke nu, skat. Kan du ikke lige gå ned, skat? Can I rate it from 0 to 10? No, not now, baby. Så kan det, Jonas, mig. Okay, this one. Guy, baby, look at this. Vi kan lave mad lige om lidt, Jonas. Oh my God. 10 minutter. Guys, look at this. Yes. Oh my God. Not the beautiful lipstick. Yes, it is really amazing lipstick. Oh my God, this one is Mogadishu, guys. Oh. Let me close this. Oh my God. This one you like in the day, Yes. or do you like in the evening? Which one do you like in the evening? This one is both day and evening. Day and evening. Mogadishu. Oh my God, look at this Mogadishu, guys. This is absolutely beautiful. But let me ask you, why do you like this Mogadishu? Why do you like this color? It's a really intense color. Intense color. Yes. Is it a bit romantic and bit dramatical? Yeah, it's not so much what you call it rampant, but it's a more intense color. More than Do you want to kiss me? Later on, okay? Okay, which one do you think it's very, it's like very romantic? Which one do you like when it gets romantic? This one is I like think it's Beledweyne or Baraha. Beledweyne? Let me see if I have Beledweyne. Let me show you. I don't have a Beledweyne here. Oh my God. Why? Baraha. I don't have a Baraha here. But I have by double, and it's like Baraha. Okay. You're gonna also take the long lasting. Yeah. This one, akhyare, it's a by double. Had the Baraha hakan kumahayo. Oh my God, this Mogadishu is beautiful, guys. Look at this. Salid ang kushubay. I put oil on it because it's not comes off. Alla masayra kuhaya. Alla walasha ihilina isam. Maxaa dhacay dadkan talo? What is going on, guys? We love you guys. Don't be jealous. Guys, tell them, baby. For what? People, haters. Oh no, just be happy. Be happy and make your husband happy. That's all. Yes, Mogadishu is beautiful. Mogadishu is beautiful. Yes. But my husband, he say, Nimpos, your favorite color? Okay. what do you see Nim'a say? Who is the man, Naeema? Who is the man? This is my husband. This is my husband. My everything for my big love. Why, you know? Erigabo, yes. Yeah, Erigabo. It's also a Yeah, good one. but you love in my husband, he say in the evening when you are like getting very sexy, and you know it's beautiful to put on waterproof and kiss proof because it's not transferring, guys. Mas soconayso. So when you want to put kiss proof lipstick, then you have to put Baraha or what? Baraha or Beledweyne. Yes. They are very red. But this one is by Double Janayo. It's also beautiful, but it's transferring, right? Yeah, It's not kiss proof. No, It's don't not. have all this.
the lipstick on the mouth. wuxuu yidhi kan haddaa marsato buu yidhi markay idinku dhunkato idinka dhan nimanka transfer ay ku samaynaysaa yeah yes I sell all product baby you can tell them Did you sell? Yes, you sell. You can go on the website naeemabrink.com. Regabo, we don't have it here. We have Naeema have 24 different lipsticks. So yeah do you remember what's it called can you tell the names the name. yeah Number 1, Baraha you have to say a little bit loud Baraha. yeah Baraha Number 2, Bosaso. Number 3, Gataway. Yes, we have the booty. Number 4, Kaygii. 5, Caawin. 6, Mogadishu. 7, Las Arnold. yeah 8, Gabile. 9, Barbera. 10 is Kismayo. 11 waa isqarinooya Hudo. xudur Oduk. xudur Hudu. nay not like that you have to say xudur Ush. Ukduk. nah xudur this one is ha xudur Hudu. xudur Hudu. okay guys you understand okay go on xudur 12 number 12 Barawe. ba Barawe. Barawe yeah Barawe. yeah 13 number 13 Baran. baran yes I have baran here 14 I have baran here 14 what's the last one? number 14 he remember all the colors in head Barawe. eh Barawe. Barawe Barawe. 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 Barawe Barawe. yeah Yes. That What- was the kiss proof yeah kiss proof and long lasting. kuwa subagale ama saliida leh Regabo. Regabo. ceelbuur Number 3 what is that? Maka. markacdee And number 4 is Burro. burco Burco. burco I have here in burco actually Yeah. That's a really good one. yeah burco do you like burco Yeah, that's a good one. hello but baby continue Yeah. I'm fine burco 5. That's 5. Number 5. Let's think a little bit. you have in your head baby it's amazing 5. I don't have burco in here also oof That's Garahare. garbahare yeah 6. Djibouti. Djibouti I don't have it here also 7. We have. What's the missing? which one Oh, yeah, that's another great one. Garahare. Baidabo. baydhaba janaayo tan le waay waa ujeedine yeah Yes. 8. We're missing. God. baydhabo can I help you And I know we have a Garissa. That's number 10. Garissa number 10 But we have the other way. Jigjiga Jigjiga. Yes. That's the number 8. yeah And number 9 missing. I don't remember he remember all this Yes, I don't remember baby which one have? No, one more. yeah come on you can do it you say burco you say erkabo you say marka For long lasting I don't remember Garahare, Baidabo, Jigjiga. which one let me find it I don't understand where you can do it You can baby say that most popular are the kiss proof. yeah most popular yeah Yeah. yeah they are But. Jigjiga. Chichiga you cannot find the other one huh Garahare, Djibouti. Which one? you forget the capital of Somaliland oh my god what are you doing Guess that's number 5. That's number 5. you forgot Yeah, that's number 5. yeah
That's not number 9. Yeah. That's a problem. But you forgot that one. Yes. Yes. Oh my God. Oh my God, you have shame on you, baby. Oh my God. Sorry for that, Haysaa. Sorry for that, Hargeysa. Yeah, you forgot that. Yeah, that's because we took the other one. Yeah, I know, baby, but don't worry. Pineapple, Haddi. Yeah, but guys, this one, my husband, he say this one I like on the night when my wife want to, like, you know, get a little bit romantic. Look at this, guys. Ooh, are you hot now? We have finished the live show now. Bye-bye. Guys, this one is absolutely, baby, why do you like this one? This one is by Dabachanaya Akhyare. If you don't want to kiss proof, if you don't want to, what's it called, long lasting, you can have a kiss proof, and you can kiss, you can bite your husband, you can even eat him, and it's not transferring. So Yes. why do you like this one, We baby? take Baraha or Palestine. Borama? Yeah, Yeah, one of these. It's a kiss proof. yeah, but also long lasting. Djibouti, I don't know where Djibouti is. It's pink. I don't have any here. No, we not have all here. Yeah, I don't have. Downstairs. Yeah, downstairs, guys. I'm upstairs, so sorry, guys. But as you see, what's it called? You like Mogadishu. You love Mogadishu in the day and in the night also. But because it's what dramatic way. It's like But it's also depending on the clothes you have on. clothes you have on. Yeah, the scarf, you call it. Yeah, Yeah. and the hijab ka Yeah. xirantay ku xirantay. Yeah, You yeah, have to suit together. yeah, The absolutely. makeup you're wearing, so it's good to have some colors. Yeah. Guys, dhageysta wuxuu idin dhahay waxay ku xiran tahay xijaabkaad xiranayso, waxay ku xiran tahay dharka aad xiranayso, waxaasay ku xiran tahay wuu ku yiri. So you can match it and your makeup, yeah. But this makeup actually it suits. And this makeup it's wuxuu ahaa challenge. My sister igu soo challenge garaysay. YouTube-kaygan soo gelinaya gadaalan u mariyay. So waxaan ku bilaabay bootarka, waxaan ku bilaabay eyelasheska. It was challenge makeup. What do you think of this makeup, babe? Yes, look. Do you like it? Yes, look. Really? What? Uh-oh. Oh, baby, you are so... But you don't need all the colors. You just have 4 or 5 colors. That will be fine. Yeah, absolutely. You don't have to add all the colors, maaragtay lipstickyada dhan ina iibsato uma baahnid. Like in 2 colors or 4 colors, or some things like this and like this, it's enough. 3, 4. Yeah. Someone in the brown, someone in the red, someone in the purple, pink. Yeah, but the color one, the other one I told the girls, the one you like is Mogadishu, we call bear, and that's absolutely a beautiful color, baby. Yes, absolutely. Yeah, it's like a high drama, something like baby. Intense. Yeah, I love it. Yes. But also all our lipstick, it suits dark skin people. Yeah, but not only dark skin. It's Yeah, from the, what do you call it, bright dark yeah, to dark. yeah, absolutely. Yeah, So- but it has a very big mint. Yes. Yeah. And you are so lucky to have some good lips to put lipstick on. Yeah. Yeah. What do you say? What do you say, baby? They have some good lips. Oh! I'm not say big lips, but good lips. And Oh, baby, thank you so much for gabdhaha Soomaaliyeed sa u hagaajisay. Wuxuu yiri gabdhaha Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu siiyay lipstickyo dibno qurux badan. Dibno qurux badan oo aadna u waaweyn oo macmacaan bay leeyihiin. So put something lipstick on. Oh, baby, that's sweet. Do you think I have a big lips? some fine lips. But compared to yours, you don't have a lot of lipstick, ba? No. You have a small. But that's okay. I like them. But that's, you know, the white women want big lips and dark skin. Yeah. And some of the black women want have to bright skin. So Yeah. That's not good. Yeah. That's So- not, yeah. That's but like, that's the way it is. So always is the grass is green the other side. Yeah, but I am happy what I have. I really have. I am happy what I have. But inshallah, I would love to have a little bit big lip here, something like that, baby. Look at this.
No? No. Do you think they are fine? Look at her lips. It's not fine. Guys, what do you think? In yar ma durtaa kuwa sare? Just a little bit. I think it looks fine. Really? Okay, thank you, baby. Oh, you I'm not thinking. I say it looks fine for me. for you. Yes. Okay. So I will not get any big lips. I will put lips, so that's okay. So guys, put some lipstick that like wuxuu idinku yiri isagoo nina buu wuxuu idinku yiri gabdhaha Soomaaliyeed they have a beautiful lips buu yiri dibna qurux badan bay haystaan gabdhaha Soomaaliyeed. So put some good lipstick buu idinku yiri. Absolutely. They say also the Somalian girls, they have nice lips. Yes. Yeah, that's it. Somalian women, be happy, be proud. You are beautiful. Yeah, that's what they. What about those who bleach themselves? Yeah, that's why They I want to wanna- be White. White, and you see white women want to be black. So, yeah. But you know what? You are very clever because you know who bleaches and who don't bleach. Yes, you can see that. How can you see? Gabadha iscadaysa waa ogahay buu yiri waan aqaanaa. Because when they bleach, is not do it completely. Maybe you can see some of the neck or the arm or something where you can see they're different. Okay. So, but it's up to them. If they want to do that, fine with me. Fine with me? Can I Yeah. bleach? Can I bleach myself? No, Why? because you are my wife. I don't want. In yara iscadaynaya little bit. No, Okay. you have to be proud of your skin. Yeah, absolutely. We have to be proud of our skin, guys. But you know what? Somalian men, they don't want to marry us. They want a white lady. That's why we want to be a little bit white. So why take a Somalian man? Yeah. You don't have to take Somalian men, right? So take what? Another man. I don't say Somalian, Danish, black, white. Don't care. Yeah. Take the one you love. Yeah, absolutely. That's true. That's true. Absolutely, guys. Can we send in Djibouti? In where? In Djibouti? Yeah, I think we can. Or we have a distributor in Somaliland. We have a distributor in Somaliland, guys. Yeah. So in Hargeisa. So that shop she can send you, and we have in Kenya also. Yes. Yeah, but some girls they are not proud. Yeah, well, it's everywhere. Yeah, it's everywhere. But So- yeah, That's the way it is. Yeah. You want to put in some Botox and some skin that Yeah. to be slim and fit. yeah. But you know what? In that, he's a guy. He say, "No, sister, we like the original color." Yes. And you know what? Actually, that's true because some we have been in Somaliland, and almost the Somaliland guys they all want to like original girl because now they don't know which one is bleached and which one is not bleached, and it's not smells good when you bleach yourself. So. I'm proud of you guys. What do you say to Somalian guys, so, baby? You have to be proud of you. You Somalian women, some of the most beautiful in Africa. She is older than you? No. Oh my God, baby. I know looks young and fit. Umar, what the fuck are you doing? Baby, look at this. They say you are they are crazy. How about Sweden? We have also in Sweden Yes. we have distributor in Sweden. Yeah. But we can also send here from Sweden. Yeah, we can send. The Yes, post no is working. problem. The We have post is done working. Many of this. Yeah. And So we have been to Sweden many times. Stockholm, Malmö, Göteborg, Borås, Jönköping. Yeah. Where? but Lund. Yeah. but inshallah when it's coronavirus over, we are going to we are gonna start to inshallah to what's it called in European tour. now in Africa. We're starting in Africa. We are gonna start Ethiopia, Djibouti, and Puntland. Are we going there? Yeah, When? after the corona is finished. Okay, that's new for me.
It's new for you. I think it was going to Kenya, but Yeah. Kenya we are going to Nairobi and Mombasa. We've been there. It's amazing. Germany, yes. Hamburg, München, Berlin, Frankfurt. Yeah. We have been every places. Haysaa is what's called Mona. I don't know the shop name. Yeah, Mona Khalifa exclusive shop, guys. There. Yeah. Absolutely. It is. So, guys. Okay, I go down now. Baby, go down Okay. here. I will say goodbye to the live, and I will come over to you with this lipstick and kiss you. Take care, everybody. Aarhus, yeah. We've been Aarhus, yeah, vi sender also. Ja, vi har været i Aarhus mange gange, har vi? Mange gange, ja. Vi har været mange gange, ja. Okay, kontakte hende på Snapchat, mail, Yeah, everything's here. Messenger, jeg ved ikke, alt muligt. And YouTube also, because now I put a lot of things on YouTube. Yes. And now next video, it will be, what's it called? We're gonna talk about what will we say? Yes, husband and wife. Husband and wife, and how we met. We are gonna Yes. talk about how we met, inshallah. Baby, thank you so much because you stay here. Thank you, baby. Take care. Assalamu alaikum. Baby, thank you, baby. Love you. You know that I love you so much. Don't close. Guys. Dhacay baab igu beerahay uno. Mar alla markaan maqlay isaga gabdhaha Soomaaliyeed ka hadlaaya. Kiish dhacay baaba dhulka la igu dhigaa. Oh my god, I love it. Markuu ka hadla Soomaalida gabdhaha Soomaaliyeed dhaho. Gabdhaha Soomaaliyeed, you are beautiful. You don't have to change anything at all. Nimankana videoga anigu aan ka soo hadlay ayay ku taalaa aan ku soo sheegay. Yes, he's my husband walaalo. And maadaama odaygu ka soo hadlay in uu jecel yahay lipstick brownka iyo lipstick cas ama gaduudka, gabdhahow waxaan idin iri guntiga dhishiisaga dhiga inshallah. He is such a nice guy. Absolutely, he's an amazing guy. Wallahi, he's so honest and so amazing way, mashallah, tabarakallah. Lakin, guys, it was not easy. Markan kulmaynay, it was not easy. Hadda waxaan sameeynayaa aniga saa ii taabo marka hore markaad ii taabato ayaad arkaysaa YouTube-kayga waa Naeema Brink soo gala video baan sameeyay. Videogaas aad ku arkaysiin hadduu Ilaahay awoodale ka dhigo. Mar walba waxaan u taaganahay aniga Naeema ahaan gabdhaha Soomaaliyeed quruxdooda iyo inay hor u maraan. Gabar kasta oo qof kasta oo halkan ka oynaya oo caytamayana dib male. I will block you walaalo, block unba kugu filan, because waxa ogaataan qof kasta oo wax idinka sheega inaanu idinka sheegaynin because of qofka xun uu wax ka sheegayo ee isaga ayaa ciil qaba iyo murugo ku nool. Ogaada, always haterska, dadka haterska ay markay wax sheegayaan qof wax ka sheegayaan iyaga ayaa dhibaato haysataa. So don't worry, walaalo hore la isaga sii dhaafaa. Wiilasha Soomaaliyeedna anigu bariga dhawtaan Somaliland tagay waxaan soo ogaaday in ay neceb yihiin boqolkiiba boqol in ay neceb yihiin gabdhaha runtii iscadeeya ay hadda ka tageen oo aanay rabin gabadh iscadeyso, because waxa arkaysaa gabadh iscadeysay oo cad oo ilmo madow wadata markaas hooyaba ilmi kulaada war ilma adiga maada dhalay huuno ha ana dhalay oo adiga soodigan cad ilmuhuna madow because of what bleach. Ilmihi gabdhihiin yaryar ee Soomaaliyeed gabar hooyo walba mas'uul baa ka saaran inaanay inanteeda tusin inay jir xun leedahay oo jirkaaga aad tiraahdo waan sacdeynaya inantaada yar bad xataa codad ku beeraysaa. How can I contact you because I want to 3 lipstick? Sister, you can contact me walaalo on Facebook, on Instagram, on WhatsApp, everywhere walaalo. Aniga saa ii taaba Snapchat-kayga inshallah igala soo hadal. Snapchat-kayga already 14 qof wax igu soo diray waa kuwaasaya. So Snap-kayga igala soo hadal. YouTube-kaygana akhyaaray waxaan soo geliyaa waxyaabo fara badan aan soo geliyaa, talooyin baan soo geliyay. YouTube-kayga, let's show you guys, let me show you wax kasta waxaan jecelahay inaan idin la qaybsado. Let me see. Khiyaaray waxaad qoraysaan waa kasa YouTube-kayga waxaad qoraysaan waxaan haystaa 27,000 subscribers baan haystaa ma ujeedino
That's okay. I don't have a lot, but that's enough subscribers, okay? So markaad halka taabato waxa ku soo baxaysa Naeema Brink. Please ka qaata screenshot sad u gashin. Waxa ku soo baxaysa caruurta shalayto waxaanu sameynay. Waxay sameynayeen maxaa la yiraahdaa jikaday sameynay sakriye iyo ba cake sameynayay. Waxaan soo galiyay 4 waxyaabood oo lagu garto ninka gogol dhaaf ka sameeya ama naakala raba inuu guursado ma fahmino waxaan kala soo galiyay shalayto tufaax darajo ayaan baraanka ku sameeyay waa soo galiyay waxaan soo galiyay 5 siyaabood oo lagu garan karo ninka naakale uu maxay hadawan ninka naakale ku shan waxaad ninka naakale ku ilowsin karto calashan shanta waxa dad sameeyso ninkaagu naakale wuu ilaabayaa this one kaas waxaan soo galiyay challenge makeup ay igu soo xujeysatay inanta la dhahayo Aamina ma aha waxa igu soo xujeysatay gabadha la dhahayo walaashayda qaaligan aadka u jeclahay eeba igu soo xujeysatay Qamar bintu Amiir laba waa 11 calaamadood oo lagu garto gabadha guurka ka rabto 11 calaamadood oo lagu garto ninka guurka ka raba qofkii raba inuu ogaado odaygayga talooyinka aan idin siinay maadaama hadda lagu jiro iyo sida aan u waxyaabaha sameeyno waa taasa odaygayga oo talo siinaayo waxaan kale oo mid kale soo sameeyay qofkii raba inuu ogaado odaygaygu muslim ma aha miyaa let's see waxaas video waan soo galiyay I don't know where is the other video odaygayga muslim isaga muslim uu ka hadlayo way jirtaa isagana I don't know meel uu aaday meelaas uu ku jiray videogayga waad ka helaysaa isagana videogayga dhexdiisa insha Allah yeah tufaax darajo iyadana markii ugu horse leeleefo cunayso waa ku jira sidoo kale markan aday waa ku jira ayeeyo mucjisa ah oo inaan Soomaaliyeed xumaysay waa ku jira oh my god waxa soo dhan haddana waxaan soo galinayaa video ay igu soo xujeysatay